waxaa la dhahaa mukhayim al-Yarmouk ee xerada Yarmouk oo loogu talagalay qaxootida Falastiiniyiinta. waxaana deganaa 1 milyan qof ka badan oo 250,000 waxay ahaayeen Falastiiniyiin. hijrada Falastiiniyiinta ee xeradan waxay bilaabatay 1948 waxayna ahayd waqtigii Israa'iil qabsatay dalka Falastiin. waqtigaasna Falastiiniyiinta waxaa lagu qasbay inay u qaxaan dalal kale, dalalkaas oo ka mid ah Urdun, Lubnaan iyo Suuriya. markaasayna bilaabatay qisada xerada Yarmouk. dagaalka Suuriyana markuu bilowday 2011 ilaa hadda kooxyo badan meeshan isku dagaaleen. taasna dadkii meesha degnaayeen waxay ku qasabtay inay meelo kale raadsadaan oo degaan. saas daraaddeeda waxaa loo soo diray basas badan oo lagu wadaayo magaalayaal kale inay geyso. waxayna soo xasuusteen markii Israa'iil dalkooda ka soo bixi jirtay mar hore. laakiin hadda nidaamkii Bashaar al-Asad markii la bixiyey, dadku waxay bilaabeen guryahooda inay u soo laabtaan. marka xeradaana maanta fiirinaynaa qisooyinka dadka maqlayna. الحياة شوف رجعت يعني ما شاء الله. الحياة كلها زفت والحمد لله. حياة شوف زفت والحمد لله. السلام عليكم يا خيرت وإذن سلامي ما أنتوا حنجوجا مخيم اليرموك كان بقى الدونك وين فلسطينيين تدقن وحكوية لنا دمشق عاصمة سوريا كان بقى واحد دقناين هذه لو كل دوان مليون قف مليون كاس لو بقول كنتم كن قف وحي هايين فلسطينيين أنت إسكت دقناين أمان هذه دقالك إسرائيل مركي دولارك فلسطين تحدي dadkii oo guryahooda laga soo buriyay inta la keenay guryahan iska deganayeen amaantooda laakiin Bashaar wuxuu ku bilaabay dagaal 2011 ilaa adiga sanado badan ilaa meesha ayaga xataa dhulka laga bixiyay meel kale si raadsadeen maanta kampigana ku wareegaynaa waa barnaynaa nala socda insha Allah. المظاهرات أول شيء ما كانت من المخيم، كانت تيجي من التضامن من مناطق ثانية على المخيم، يعني المخيم بلوة. dadka aan la hadalnay waxay noo sheegeen mudaharaadka Suuriya markii ka bilaabatay 2011 inuu nidaamka Bashaar al-Asad wiligiisa rabay xeradan inuu dudumiyo. wiligiisa Falastiiniyiinta dhulkiisa inuu ka bixi rabay, laakiin media wuxuu u sheegi jiray Falastiiniyiinta inuu soo dhaweeyay oo guri siiyay oo xero u sameeyay. لكن تاس بين إهد ما في واحد بيفوت اللي بدفع مصاري ابدا. كيف كان شكله؟ الباب كان حتى وجدين دتك ولا قد يجري إني قلان حتى دتك حرض الدقن قف والبوس وقلها العقل لقد البجري راشين حتى أضوته راشين كيسا لقى حد يجري. كان البنك الإسلامي بنك هذا بنك هذا فحرقوه. مدينة أنتم كنتوا تعتمدوا على أنفسكم كل شيء موجود عندكم. كل شيء ما نطلع برا ما نطلع برا حتى اللي بالشام كانوا يجوا على المخيم. أوه. والله. habriyatan waxay ka imaaday dhul la dhaho Jowlan dhul oo Israa'iil qabsatay 1967 markaas inta u soo guurtay. أبوه باع الجولان وهو باع سوريا كلها. يا الله. halihii yar bilowga aan ku soo socday xeradan waxaan arkay guryo badan oo dudunsan, laakiin dadka wali waxay idhahayeen waxaan inuu wax ahayn saan wax ka daran inoo jiro. anigana waa yaabanaa waxaan wax ka daran ma jiro. meeshaan dudunsan fiiriya. لسه ما شايف شيء كمان. guryahan dudunsan maxaa waaye؟ هذا لسه نظيف. هذا نظيف هلا هيك لو جيت من قبل أسوأ. habaryarta waxay ii sheegtay jidkan inuu ahaa jiray jid aad iyo aad loo buuxo, suuqyaasha meel walbo dadkii maalin walba iska soo bixi jireen, iska faraxsanaayeen. هلا هاي ساحة أبو حشيش اللي كانت مشهورة بالأعياد وكانت مشهورة يعني هذه الساحة بكل شيء. هاي ساحة أبو حشيش بقولوا لها. يعني الساحة كانت مليئة بالأفراح. مليئة بالأفراح وبكل شيء للأعراس. meeshaan hadda aad aragteen waxay ahayd meesha dadka ku ciideysan jireen, meesha iska faraxsanaayeen. ciid walba dadka meeshaan u imaan jireen, ilmahooda iska keensan jireen, maqaayadaha iska fadhiisan jireen. laakiin hadda saa u jeediin meeshii dhan waa la dudumiyey,
dadkii degnaayna waa ka ordeen waa ka baxeen. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، كيف حالك عمي؟ الله يبارك أخبارك؟ فيك، اهلا وسهلا، طيب. حياكم الله. اهلا شو وسهلا. اخباركم؟ الحمد لله. من اين من الصومال؟ من مقدشو. من اخ ما توزعنا أدرك. وتقطعنا وتفرقنا. وتفرق. صرنا 76 سنة 77 سنة يا الله. مهجرين. markii guryaheena falastiin nagala soo buriyey waxaan u soo guurnay suuriya sa ammaan u raadsano nolol fiican sa u helno. meeshaana guryo cusub ku dhisanay, xaasas yeeshanay, ilmaheena meeshaana ku soo koreen, nolol fiicana iska nooleen. laakiin waqtigii dagaalka suuriya bilowday, nidaamka bashaar al asad maskaxdiisa wuxuu saaray inuu falastiiniyiinta dalkan ka bixiyo iyo xerada yarmuug dudumiyo. saasuuna sameeyey. غادرنا، هذا منزلنا. هذا منزل عائلتي، منزل والدي الله يرحمه. gurigan aa u jeediin markaa ka tagnay guri aad u qurux badan oo ahay, laakiin sannado badana ka baxnay, waa ka guurnay, markaa soo noqonay guri oo guban oo ahay oo dudunsan. xaafadan dhanneh hal guri ka fiican ma jirin. guryahan gadaasheeda u jeediin waa la gubay, xataa tuugadii way galeen, wixii xadi karaanne way xadeen. xeeradan dhibaato badan ee soo martay waqtiga dagaalka, la'annu dagaalo badan aa meesha ka dhicin, dad badan aa isku umaadeen, gurubyaal badan. khasaarada weyntana waxay gaartay dadkii meeshaan guryo ku lahaayeen iyo dadkii degganaayeen. dad badana meesha ku dhinteen. كانت هاي روضة للأطفال. هذه كانت meeshaan xanaanada ahayd oo dadkii ilmahooda iska keeni jireen, xaafad weynay ku dhex taalay, dadkii shaqada iska haysteen, waa iska noolaayeen, nolol fiicana iska nooleen, wax aa u baahneen ma jirin. masaajidadan waxay ahaayeen meelaha ugu badan oo nidaamka bashaar al asad qarxi jireen. meel walba oo dad salaad ku tukanaya hadday arkaan way qarxi jireen, wayna dudumi jireen. hadda meeshaan aa u jeediin masaajid waaye, laakiin bannaanka markii ka aragtiin wuxuu egyahay meel oo dudunsan. waa kaasa meel la geli kara xataa ma jiro, dariishada ma leh, meel dhan ma leh. laakiin gudaha aan galno aan fiirinabo, dadkan maasha allah meesha koowaad ee dhisayaan mar walbo waxaa waaye masaajidada. maasha allah meeshaan jaranjaro wax yar nadiif waaye, bannaanka wax dudunsanay, gudaha wuxuu u egyahay wax yar la dhidhisay. gudahaan galena wax yar hay maasha allah. hay aan galno maasha allah maasha allah. meeshii bannaanka aad ugu dudunsanayd fiiri gudahaasi ka tahay maasha allah. maxaa meeshaan goormee la dhisi laakiin hadda dhow lay soo laabteene. subxaan allah, masaajidkan aad u qurux badan. fiiriya horta maloo maleena meel bannaanka ka dudunsan. maasha allah fiiriya dadkan wallaahi diintooda se u jecel yihiin. masaajidka waaye meesha koowaad ee dhistaan. markii guryahooda usoo laabteen كوغي وحي كبلاوين مساجدك. الحين الناس رجعوا للمنطقة وصاروا يصلوا هنا؟ ما شاء الله. يعني تبرعات شخصية ولا؟ لا تبرعات شخصية. haddana habaryartu waxay ii sheegtay qiso aad ugu murugooday. qisada oo masaajidkan wiilkeeda ku dhintay, ilaahay ha u naxariisto. طبعا قصة هلا يعني مأساة. ضرب النظام المسجد. nidaamka bashaar al asad markuu xabadaynayay masaajidkan wiilaa ku dhaawacay. marka wiilkaygii wuxuu maqlay qof dhaawac inuu ku jiro masaajidka oo caawinaad u baahan. wiilkaygii masaajidka u orday wiilkaas inuu caawiyo, laakiin nidaamka bashaar markay arkeen wiilkaas mar labaad ee xabad ku gameen ee masaajidka dhan qarxiyeen. markaasna wiilkaygii ilaahay ha u naxariisto meeshii ku dhintay, asigii iyo yarkii kale oo caawi rabay. والحين الحياة شوف رجعت يعني ما شاء الله. الحياة كلها زفت والحمد لله. حياة شوف زفت والحمد لله. مو أحفادك؟ هذا أحفادك؟ إيه بعضهم. لا لا كلها عصابات. الله ما شاء الله. الله يحفظك. ايوه احفاد dadka xaafadaha markay u soo laabteen waxaa la bilaabay iskoolada inaa la dhiso. iskooladaas waxaa dhisto onorwa oo ka dhigtay lacag la'aan ilmaha xaafadda dhan inay iskoolkan aadaan.
bashaar al asad iyo nidaamkooda weligooda xeradan ma caawinin. xeradan waxaa haysay UNRWA oo dadka guryaha ka dhiibi jirtay ijaarkooda iyo bil walba adiga waxyar lacagay sii jireen. iskooladana lacag la'aana looga dhigay si ilmahooda wax u bartaan. hadda mar labaad noloshii way soo laabanaysaa. meeshaas u jeedin wax walba waa duduunsan yahay laakiin iskooladan bas aa ka dhisan. الأصل وين من فلسطين؟ صفوريا الناصرة من قذافي خدي من الطنطورة من قطاع حيفا من فلسطين من أي منطقة في من فلسطين؟ القدس أنا من حيفا. هذاك رمضان صلينا فيه، كنت اجي عند ابني، كنت بعدني مو ناقله لهون. صلينا فيه تراويح يومين ثلاثه قاموا سكروا من الامن، سكروا ردوا فتحوا يوم ردوا سكروا. nidaamka hore markay arkaan xataa dadkii taraawiix inay iska tukanayaan oo masaajidka waxyar la soo buuxsamo masaajidada naga xiri jireen. meel walba oo dad cibaadadooda ku samaysanaya hadday arkaan ama way xiri jireen ama dadkii ku tukanayo ee afduuba jireen. subxaan allah, masaajidadii arkaanne way duduma jireen. nidaamkaas nidaam muslim isdhahayo nidaam muslim ma ahin. islaamka wax oo ka necbanaay ma jirin. xaafaddana waxyar markii kusiisu socday aan fahmay dadka waxay ka wadeen. meel walba waa dudunsan yihiin, guri walbo waxaa gaaray. شوف هناك ما بقى في شيء. وين؟ magaalo oo waxaa imaanay oo ghost town ah. qof jooga ma jiro meesha. fiiri, qof diga ma jiro. laba qof xagga fadhiisa bas. cabdi meesha xaafadda soo aragta. والله ماشي أنا غزة إنك بحصل عنا دريم ويا عم. ها والله نين كان ضدك إبرو كريك بشار الأسد. فلسطينيين تهرتا سيبه. والله سيحن. قريه هذا. صورت أصلا هذا أركت وها أملا يسا إنا غزة جوبت. سبحان الله. فيري فيري فيري. قريه هذا واددون هين. ضدك دقناين. meeshaan nolosha ka jirtay iska farxad suuqa ahayd. dadkina waa laga bixiyay. طبعا laga bixiyay qasban, yani guryahooda dhan waa laga dudumiyay. dhinacan fiiriye. kuwa qaarkood xataa waxay sheegayaan gurigooda ay ku jiro. hal mar ma aragtay kor waxaa loogu soo gamay bambooyin. gurigooda kor dumay. dad badan guryo badana waxaa maqalnay xataa dhagaxyaashan guryahooda ku dudumay. ayaga waa la soo bixi waayay. qasda waxa ku dhacay camal adiga. marka dad badan waa la waayay. dadna adiga nidaamkii qaatay xabsiyaashu galgaliyay oo cadaabay. dad kalena waa ka ordeen meeshan Yurub aadeen, Lebanon dad aadeen. yani qof walba meeshuu aadi karo iska aadeen. wallahi nolol ma jirto meesha. اي جميل سبحان الله. كان جميل. تلعب فوتبول تعال نلعب فوتبول. كيف؟ نلعب فوتبول. بتلعبني فرفور؟ فوتبول. فوتبول. كرة ايه كرة قدم. كرة قدم. احكيني عربي. ما بفهم انجليزي انا. كرة قدم. نعم بارك الله فيكم. الله يخليك. والله تشرفنا. haddana waxaa soo gaaray xaafaddii ugu xumeed meesha. xaafad aad iyo aad loo burburiyey. xaafadan waxaa la dhahaa xaarat almaghaariba oo ka mid ah dad Marokkaan oo u guureen Falastiin mar hore. markii oo Israa'iil qabsatay Falastiinne waxay u soo guureen Suuriya ee xeradda Yarmuuk. meeshaanne waa lagu sii dudumiyey. Falastiinta meel walba ay u guuraan waa lagu dudumiyaa, guryahoodana waa laga buriyaa. شو تسوون يا شباب؟ والله عم نمشي شايل الخشب. خشب؟ بعدين شو تسوون فيها؟ نحرق والله بنكسرهم نحطهم بالصوبيا ونطبخ عليهم. على البيت؟ أيوة. اهلكم يعني ارسلوكم عشان تجمعون خشب؟ لا والله من حالنا احنا. ما شاء الله عليكم. يعني ما عندكم ليش ما في غاز. ما في غاز، ما في بنزين، ما في. ilmahan aa u jeediin xaafadaha ama jidadka ay ku warwareegayaan say u raadsadaan alwaaxo. alwaaxyaashaas way gubayaan, raashinay ku karsanayaan ama kululeyse ee guriga ku samaysanayaan. la'anno meeshaan koronto ma jirto.
والله dadka hadda hadalkooda saa uma qasheen maanta magaalkan iyo xaafadan adig shaaric Yarmouk hadda waxaan soo galay jid la dhaho shaaric Falastiin oo adig toddobaadmadi ma ahane yani 70s ma ahane wuxuu ku celinaa 50s 60s mar hore fiiri wax walbo bilaawga mar labaad inay ka bilaabaan way meel walbo waa la dudumiyay guryo walbo xaafadii wax ka heri ma jiro هذا ماشان قفكي والله دوس صولابتو انتو دقا مدين الميل دقا مجر قولي أنا وقوبين هو دودوسين هذا نوح وقدرا وحاوي habaryartii hadda aan la joogno waxay noo sheegtay guriyihii dadkii markay ka guureen guriyihii dudunsanayn waa la sii galay wixii yaale waa la xaday kursi adiga TV wax walba ay qaadan karaan way qaateen markii dadkii guriyooda soo laabteen 7 sano kadib guriyihii faaruq ay arkeen faaruq wax ma yaalo dukaamay ahayn meeshaan dhan wixii yaal dhan waa la wada xaday hadda jidkan camal adii ku socono fiiriisa u jijabsan yahay meeshan waxay noqon jirtay dukaamo dadka iskaaga soo socdaan wax iska adeeganayaan dukaamahan horta aan fiirino soo u yaalan aan fiirino wax yar adii galno dukaamayaasha dhan xad fiir guryaha soo dudansan yihiin meel walbo waa dudansan yahay dukaankan fiiriye albaaba u jeeda meeshaas aan galno wax yarbo inna lillahi wa inna ilayhi dukaankan gadaashiisa xaafada ku taali jiray ma sha Allah quraana ku qoran meeshaas xaafad dhan say u burbursan tahay fiiriye meel la degamiya meeshan dadka adii soo laabtaan meelay degaani la yihiin subxaan allah gurigan fiiriye inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun xaafadda wallaahi bas waa aniga 2 saacadood aan meeshan joogaa wili shok ay galayso meel walba aan u jeesto shok